way kula wanaagsan saaxiib soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago xogta iyo wararka cusub ee ka soo kordhaya kiiskii gabadhii waa markaasi gabdhihii labada gabdhood iyo waliba hooyada sida arxan darrada ah magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dhibaatada culus loo geystay laguna jarjaray lagu dilay iyo waliba sidoo kale xogo kale oo dheeraad ah halkaas ka soo baxayda gurigii uu deganaa Hashim iyo waliba sidoo kale dad kale la sheegay oo CID ama dibbaarayaasha dalka Kenya ay sheegayaan in hadda lagu daba joogo milkiilihii guriga ayaana baadagoob loo jiray kadib markuu arkay ficilka iyo waliba dhibaatada halkaas ka dhacday gurigiis inuu hagaagsaday oo markaas aan wali dabagal sidaas ugu sameeyeen xogtaasi ayaa rabaa in halka kugu wadaago hadii ay tahay markuu horeyso ku soo garo muuqaalka fadlan oo la garo share gare meel dheer nala gaarsiin aragtina qaybso safaalada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaan waa soo dhawaad saaxiibayaal eedeysanayaashii dilalkii ka dhacay Islii oo lala xiriiriyay dhacdo kale oo iyana aad murugo iyo waliba tiiraanyale ugu beertay dambi baariyaasha baaray meydka sida arxan darrada loo jarjaray lagana helay qabuuraha Lantagaad 31 bishii 10 2024 waxa ay gaareen guulo waaweyn oo markaasi daaha ka rogayo howlaha Hashim Degane Maxamuud oo ahaa ninka ku eedeysana ama markaasi ugu weynaa dilalkii naxadinta lahaa ee loogu geystay hooyo iyo waliba gabadheeda iyo gabar kale oo 12 jir ah iyadoo markaasi la raacayo cadeymo muhiim ah oo lagana helay goobta dambi baariyaashu waxa ay tageen dukaankii Queen Mark oo markaasi ku yaala magaalada halkaasi oo ay ogaadeen in markaasi dhibanaha dilka arxan darrada ah loogu geystay ayna markaasi ahayd haweeney ay qabatay kaamirada CCTV-da iyadoo markaasi ka iibsanayso waa 29 bishii 10 2024 sidoo kale waxaana la xaqiijinayaa in haweeneydan markii ay wax iibsatay kadibna ay u dhaqaaqday guriga uu ku yaalo Livingtown halkaasi oo ay mar kale ay ka qabatay kaamirooyinka CCTV-yada iyadoo markaasi gelaysa guriga iyadoo haysata xog muhiim ah dambi baariyaashu waxa ay ogaadeen in haweeneydan ay markaasi la socotay Hashim Degane oo gurigaasina ku noolaa halkaas oo ay markaasi waqti ay ku wada qaateen ka hor inta uusan Hashim Degane la arkin 31 bishii 10 2024 isagoo oo gurigaasi ka baxaya isagoo oo nasita laba bac oo markaasi la tuhunsan yahay in ay ku jiraan jidka hilbaha ee markaasi sida arxan darrada dadka loogu laayay kuwa oo isla maalintaasina laga helay qabuuraha Lantagaad waxaana sidoo kale la xaqiijiyay inta kadib markii Degane uu guriga ka tagay milkiilihii guriga oo uu ogaaday in wixii ka dhacay intaasi kadibna uu nadiifiyay goobtii qolalkiina dib u rinjiyay ka hor inta uusan isqarinin waxaana hadda la baadigoobaya milkiilihii guriga waxa la aaminsan yahay in haweeneyda la sheegay ee la waayay ay noqon karto Deeqa Cabdinuur Qorane oo laga diiwaan geliyay in ay maqan tahay saldhigga booliiska ee California taariikhdu markay ahayd 24 bishii 10 2024 qaybaha jidhka ayaana lagu sameeyay baaritaano cilmiyeysan si ay markaasi loo xaqiijiyo aqoonsiga dhibanaha dhinaca kale xogtan oo markaasi si weyn ay u baahisay waaxda dabagalka dambiyada ee dalka Kenya iyadoo markaasi ay ku raad joogto misana waliba hawshu ay halkaasi ay ka sii wado ayaana sheegtay in xogo muhiim ah ay hadda helayaan oo dambiyaasha ay halkaasi ka dhacayna wado weyn loo heli doono arrintan ayaa imaaday xilli door wanaagsan ay ka qaateen dambi baariyaasha CID-da kama aysan seexanin si ay markaasi xog rasmi u heli lahaayeen ayayna waqti badan ugu bixiyeen tan iyo waliba xilligu ka bilowday halkaasi dambi baariyaasha CID-da Hashim oo ah markaasi dhagar qabaha ama qofka dhibaatada weyn geysay oo sida weyn markaasi loogu daba jooga kiiskiisa oo wali baaritaankeeda ay ku wadaan Kenya iyadoo markaasi xaaladda haddu ay tahay mid markaasi baaritaanadooda ay sii cuslaan wixii warar kale ka soo kordha barteen halkan idinku wadaagi doona saaxiibayaal si share gare muuqaalka oo meel dhan gaarsiisay cadaalad ay u hesho gabadhaas